salaamo saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan halkan waa channelka dabagalka wararka waa 8 bisha saddexaad sanadka 2022 qodobada ugu waaweyn oo warkeenana waxa kamid ah kooxda madaxweyne farmaajo oo magaalooyinka Beledweyne iyo Garbaharey ka wada qalalaadsa siyaasadeed oo dib u dhigi kara doorashada علي جودلاوي oo mar kale go'aankiisa u cadeeyay musharaxiinta kuraasta ku harsan Beledweyne warar iskhilaafsan oo ka soo baxaya dagaal ka dhacay madaxtooyada Beledweyne goodax barre oo muxuu ka yiri khilaafka ka dhax qarxay علي جودلاوي iyo Yuusuf Dabageed ayo maxaa dhici kara haddii farmaajo mar kale dib loo doorto intaasi saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu dorkaroon warka channelka dabagalka wararka aad ku cusub tahay channelkan ku soo biro subscribe sar muuqaalkan like sar share garee oo la wadaag saaxiibada wad ku maasan tahay inaad ka mid tahay saaxiibada dhawey channelkan haatan warkiyo fidsan kooxda farmaajo ayaa magaalooyinka Beledweyne iyo Garbaharey waxay ka wadaan qalalaasa dib u dhigi kara doorashada madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo xulafadiisa uu ka mid yahay la taliyihiisa Fahad Yaasin ayaa maalmahan dambe qalalaasa doorasho waxay ka bilaabeen magaalooyinka Garbaharey iyo Beledweyne labadan magaalo deegaan doorashada labaad ee maamulada Jubbaland iyo Hirshabelle ayaa waxa xilligan ka taagan xiisad adag iyadoo hakad ay ku jirto doorashadii kuraasta taalay labadaasi deegaan midaasi oo horseed ay u tahay xulafada Farmaajo iyo Fahad Yaasin maamulka Garbaharey ee taabacsan filla Soomaaliya ayaa gabi ahaan diiday in halkaas ay tagaan guddiga ra'iisul wasaare Roble oo magacaabay qiimeynta Garbaharey go'aanka loogu diiday guddiga inay tagaan Garbaharey ayaa waxa ka dambaysa madaxtooyada Soomaaliya oo rabta in siday rabtay u maamulato kuraasta taala Garbaharey sidoo kale magaalada Beledweyne waxa la hakiyay doorashada 11 kursi oo ku harsanaa kadib markii khilaaf hanaanka doorashadu ka dhax qarxay madaxweyne Ali Guudlaawe iyo ku xigeenkiisa Yuusuf Dabageed waxa uu helisa xiisad amni oo ka taagan Beledweyne xogaha laga helay arintan ayaa sheegaya in Yuusuf Dabageed uu si weyn ugu xiran yahay Farmaajo iyo Fahad isla markaana uu doonayo in inta badan kuraasta loo xiro xubnaha ay wataan sida hore u dhacday taasoo la soo warinayo inuu ka hor yimid Ali Guudlaawe xiisada Beledweyne ayaa laga cabsi qabaa in isku bedesho dagaal haddii la isku dayo in la boobo kuraasta sida adag la isugu hayo maadaama halkaas ay ku sugan yihiin musharaxiin aad uga soo horjeeda oo qaarkood ay hubeysan yihiin si kastaba damaca xulafada Farmaajo iyo Fahad ayaa u muuqda mid mar kale doorashada ku keeni kara dib u dhac kale maadaama qalalaasa doorasho ay ka wadaan labada maamul ee kuraasta ugu badani ay weli ku harsan yihiin dhanka kale Ali Guudlaawe ayaa mar kale go'aankiisa u cadeeyay musharaxiinta kuraasta ku harsan Beledweyne madaxweynaha maamulka Hirshabelle Ali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawe oo maanta mar kale kulan la qaatay inta badan musharaxiinta u taagan 11 kursi ee ku harsan magaalada Beledweyne ayaa u cadeeyay mowqifkiisa kulanka oo ka dhacay madaxtooyada Hirshabelle ee Beledweyne ayaa ahaa kulan qaatay waqti badan waxaana madaxweyne Ali Guudlaawe uu mar kale u cadeeyay musharaxiinta in aan la xiri doonin kuraasta taala Beledweyne kulanka ayaa waxa sidoo kale goobjoog ka ahaa madaxweyne ku-xigeenka Hirshabelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed kaasoo diidan in kuraasta la furo waxaana wararku ay sheegayaan in weli diidan yahay go'aanka uu ku adkaystay Guudlaawe Dabageed ayaa ku xiran filla Soomaaliya waxaanu doonayaa qaar ka mid ah siyaasiyiinta ugu caansan gobolka in aanay dib ugu soo laaban golaha shacabka madaxweynaha Hirshabelle ayaa musharaxiinta ka codsaday in xaaladda ay dejiyaan isla markaana ay ciidamada ammaanka kala shaqeeyaan sugidda amniga Beledweyne intay ka dhacayso doorashada musharaxiinta ayaa aqbalay codsiga madaxweynaha Hirshabelle waxaana sidoo kale kaga mahad celiyeen inuu ku adkaystay go'aankiisa xilli ku xigeenkiisa uu rabo in la boobo kuraasta harsan dhanka kale warar iskhilaafsan ayaa ka soo baxaya dagaal ka dhacay madaxtooyada Beledweyne dagaal culus oo dhaliyay qasare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa maanta ka dhacay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan halkaas oo la doonayo in lagu qabto doorashada kuraas kale oo ka mid ah golaha shacabka dagaalka ayaa ka dhacay afaafka hore ee madaxtooyada Lamagalaay halkaas oo ay degan yihiin madaxda ugu sareysa maamulka Hirshabelle sidoo kale hadda ay ku sugan yihiin inta badan musharaxiinta u taagan kuraasta 11 ah ee weli taala magaaladaasi warar iskhilaafsan ayaa ka soo baxaya sababta keentay israsaaseynta ka dhacday Beledweyne waxaana goobjoogayaal qaarkood ay u xaqiijiyeen warbaahinta in dagaalka uu ka dhashay kala shaki soo kala dhaxgalay ilaalada musharaxiinta ku sugan madaxtooyada iyo ciidamada dawladda
warar kale ayaa iyana sheegaya in dagaalku u dhexeeyay ciidamada ammaanka ee ku sugan beledweyne iyo maleeshiya beeleed ka caraysan in shakhsi loo xiro kursiga hoob 10 oo hadda uu ku fadhiyo Cabdirasaaq Maxamed Jindi. maleeshiyaadka ciidamada ammaanka kula dagaalamay magaalada beledweyne ayaa xalay soo galay gudaha magaalada iyagoo warbaahinta la hadlay waxaanay sheegeen in ay dagaal ka xigaan in kursiga hoob 110 qof loo xiro. wararkan helin ayaa sheegaya in dagaalka ay ku dhinteen 2 qof oo mid shacab u yahay halka midka kalena askari u ahaa halkay ku dhaawacmeen 3 qof oo ka mid ah dhinacyada dagaalamay kuwaas oo la geeyay dhaawacooda isbitaalka magaalada beledweyne. wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in la kala dhaxgalay ciidamada dagaalamay isla markaana hadda ay xaaladu tahay mid degan. waxaa halka uu dagaalka ka dhacay shir uu kaga socday madaxweynaha Hirshabelle ku-xigeenkiisa iyo musharaxiinta u taagan kuraasta 12 ah ee ku harsan magaalada beledweyne. xog aan ka helna kulankaasi ayaa sheegaya in lagu heshiiyey inaan kuraasta la xirin isla markaana ay musharaxiintu u tartamaan si siman oo cadaalad ah. geesta kale muxuu Goodax Barre ka yiri khilaafka Cali Guudlaawe iyo Yuusuf Dabageed. wasiirkii hore wasaaradda waxbarashada Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre oo haatan ka mid ah musharaxiinta ku sugan magaalada beledweyne ayaa ka hadlay khilaafka soo kala dhaxgalay madaxweynaha Hirshabelle Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawe iyo ku-xigeenkiisa Yuusuf Axmed Hagar Dabageed. Goodax Barre ayaa shaaca ka qaaday in khilaafkan uu saameyn ku yeelan karo hanaanka doorashada balse waxa uu tilmaamay in taladiisu ay shaqeyn doonto cidda ay la jiraan reer Hiiraan waxaana uu xusay inay garab taagan yihiin madaxweyne Cali Guudlaawe Xuseen. mar walba shacbiyada iyo dadka beledweyne cidda ay jiraan ay taladiisu shaqeyn doontaa mar haddii madaxweynihii uu joogo annaga madaxweyne ku-xigeen mar naqaano madaxweynaha ayaanu naqaanaa waxaa sidaas yiri musharax Cabdullaahi Goodax Barre. sidoo kale waxa uu ka soo horjeestay damaca Dabageed ee ku aadan in kuraasta loo xiray shakhsiyad gaar ah isagoo tilmaamay in marnaba aysan aqbali doonin arrintaasi. waxa kale oo intaas uu ku daray waxaan ka baqayaa haddii la kala xishoon waayo in meeshaasi ay ka soo baxdo dhibaato weyn. hadalkani ayaa ku soo aaday iyadoo hoggaanka Hirshabelle ay isku qabteen kuraasta u harsan maamulkaasi in shakhsiyad gaar ah loo xiro iyo madaxweynaha Hirshabelle oo arrintaasi ka hor yimid. ugu dambeynna maxaa dhici kara haddii farmaajo dib loo doorto? gudoomiyaha xisbiga kulan Cismaan Xasan Cilmi ayaa sheegay in Soomaaliya ay wajahayso halis jiritaankeeda ku yimaada haddii dib loo doorto farmaajo oo dhaawac weyn u geystay dowladnimada Soomaaliya. waxa uu sheegay in farmaajo uu ku abaal dhacay shacabka xilligan loo baahan yahay in la dedejiyo doorashada golaha shacabka si uu dhaco isbedel cusub oo aad looga fiirsaday. 6 sano oo joogan waa wax ugu bah in 6 sano muddo xileed iska jiro la isku madayin in wax sifa sharci darro ah lagu sii kororsado dowladan ka hor. waxa sidaas yiri gudoomiye Cismaan waxa uu intaas ku daray xulafada 6 sanana gaarsiisay waxaan aaminsanahay in talada dalka aysan ku soo laabanayn haddii ay ku soo laabtaanna ay horseedayaan halaag iyo burbur oo aysan u muuqan marnaba horumar. gudoomiye Cismaan ayaa sidoo kale ku dooday in xilligan ay dalka samata bixi karin dadka qurba joogta ah ee muddo ka maqnaa dalka isla markaana ay tahay in doorkan talada dalka loo dhiibo qof aan ka bixin dalka oo ka shaqeynaya horumarka dalka. waxa uu ka codsaday golaha watashiga qaranka inay iclaamiyaan waqtiga la isugu yeerayo xildhibaanada cusub si loo dardargeliyo doorashada dalka oo horseedaysa isbedel cusub. si kastaba Soomaaliya ayaa ku daahday marxaladda kala guurka waxaana xilligan gabagabo ku dhow doorashada golaha shacabka oo loo qabtay in lagu soo dhameystiro 15 bishan Maarso. guudana saaxiibayaal waa nageynta warka channelka dabagalka wararka haddii aad ku cusub tahay channelkan kusoo biro subscribe sar muuqaalkan like sar share gareeyo la wadaag saaxiibada waad ku maasan tahay inaad daawato warkan mid ka xigeentan ku kulmi doono nabadgelyo.